عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن وحسن سيدي ميديا فضلا هدي ايتاي مركا يكو هوريسي بوقشدا هلكن فضلا سبسكرايب inoo saar rukumokan balaalkan si aad u noqotay daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaaladan soo galino like de oo share de comment ka bixi lana wadaaga asxaabtaada si ay noogu soo biraan. waxaan halkan ka soo jeedin doonaa dhibaatooyinka deegaanada Soomaalida ee waqti xaadirkan taagan. waxaan u kala qaadi karnaa laba qaybood oo waaweyn waxayna kala yihiin dhibaatooyin deegaan oo dabiici ah oo afka qalaad lagu yiraahdo natural disaster iyo dhibaatooyin deegaan oo aadan u sababo oo afka qalaad lagu yiraahdo man made disaster. dhibaatooyinka deegaan ee dabiiciga ee ugu waaweyn ee Soomaalida haysato waqti xaadirkan waa daadadka iyo abaarta. si qoto dheer waxaan u dul istaagi doonaa arrimaha daadadka oo haatan taagan sida beledweyne ka jirto oo kale. waa maxay daadad ama fatahaad waa daadad caadiga ah oo ka dhaca meel qalalan taasoo ay sababtay kor u kaca heerka biyaha webiga ku jiro. fatahaad oo wax lama filaan ah oo dhaca kuwaasoo burbur keena waxayna ka dhici karaan goobo weligood roob lagu arag waxayna sababi karaan dhimasho dhaawac iyo godoomin bulsho sida haatan beledweyne ka taagan. taariikh ahaan fatahaada webiyada Juba iyo Shabeelle waa musiibooyin dabiici ah oo inta badan dhaca waqtiyada ay dhaceen fatahaada webiyada Juba iyo Shabeelle 1960 iyo 1970 iyo 1997 2005 2006 iyo 2008 iyo 2013 14 iyo 19 oo haatan la joogo. maxaa nala gudboon marka daadadka dhacaan? haddii ay fatahaad ka jirto meesha gurigaada ugu dhow ee aad ugu badbaadi karto waa inaad joogtaa. xasuusnaaw inaad qaadatid sahayda gurmadka, ka fogow biyaha socda, si joogtaa ula soco warbaahinta. waqti xaadirkan waxaa taagan dhibaatooyin xoogan kuwaasoo uu ka dhashay daadadka ka dhacaya qaybo kamid ah dalka Soomaaliya. meelaha sida xoogan daadadka uu saameysay waxaa ugu horeyso magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waa halbowlaha ganacsiga ee gobolada dhexe. dabcan dhibaato xoogan iyo go'doon xoogan ayayna ku jirtaa. magaalada Beledweyne waxaa ka taagan nolol adag oo saameyn ku reebtay dadka iyo deegaanka. boqolaal iskugu jira caruur, haween iyo waayeel ayaa hoy iyo hanti ku beelay fatahaada webiga Shabeelle oo ka saameeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. miyayna mudneen in aan u damqano u naxariisano walaalaheena reer Beledweyne? ganacsato, culummo, dhalinyaro dhammaanteen waxayna laga rabaa inaan u gurmano dadkaas tabaalaysan si gargaar dhan walba ah aan ula gaarno. waxaa magaalada Beledweyne ku dhintay dad fara badan, sidoo kale waxaa ku barakacay dad lagu qiyaasay in ka badan 35,000 oo ruux. 35,000 oo ruux dad gaaraya ay halkaasi ku barakacay. fadlan bixi waxaad awoodo, geyna meesha kuugu dhow oo wax lagu bixinayo insha Allah. fadlan xasuusnaaw inaad caawisid walaalahaaga ku dhibaataysan magaalada Beledweyne. aad u mahadsantihiin la socodka iyo daawashada muuqaalkayaga. waa mahadsantihiin.